odayaasha salaadiinta cuqaashan iyo waxgaradkan ka soo jeeda gobolada saaxil iyo togdheer oo magaalada burco shir jaraa'id ku qabtay ayaa ka hadlay dhul ku yaala magaalada berbera oo ay ku muransan yihiin shakhsiyaad kale iyagoo eedeymo u soo jeediyey duqa degmada berbera cabdishakuur ciddin iyo ganacsadaha dhulkaasi dhismaha ka wada waxaana sidoo kale ay waxgaradkani baaq dheer u direen wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha laamaha kala duwan ee amniga iyo madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyagoo ugu baaqay in arrintaasi ay wax ka qabtaan. waxaanu ka hadlaynaa dhulka berbera ku yaala ee uu leeyahay Axmed Yaasiin Cali Sheekh dhulkaasi wuxuu ku yaalaa ka soo horjeedka dhulkii Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal laamiga Hargeysa marka berbera uu soo galo waxaanu ka hadlaynaa oo ka dhacday xaq darro cad oo aan hore loo arag Soomaaliland ilaa 91 aan hore loo arag ayaa ka dhacday dhulkaasi wuxuu leeyahay mulkiyad ku taariikhaysan 1986 bursada maayarkii la oran jiray ayaa bixiyay wuu seesnaa dhulkaasi sifo sharci ah ayuu ku mulkiyay Axmed Yaasiin Cali Gure Sheekh dhulka waxa imika force ku dhisay oo habeen iyo maalinba dhisay 12 habeenimo la dhisay waxa ka muuqday ciidanka amniga ayaa ka muuqday oo awood ku dhisayay waxa adeegsaday ninka Muuse Dalab la yiraahdo ayaa dhulka sheegtay waxa la yiri waa lagu jid marinaya waa lagu wada hadlay tiraba 3 jeer waxba uu waayay mulkiyad sharci ah ayuu dhulkaasi leeyahay waxa awood siin ku dhisay maayarka berbera Cabdishakuur baa awood siin ku dhacay waxaan leenahay mudane madaxweyne dhulkaasi waa dhul sharci leh waxa la Axmed Yaasiin Cali Sheekh mulkiyad buu leeyahay mulkiyadaasi waa lagu horkeeni doonaa hadii loo baahdo waxaanu leenahay meesha waxa ka taagan nabadgelyo darro ciidanka booliiska waxa loo adeegsan jiray nabadgelyada maanta waxa loo adeegsaday nabadgelyo darro waxa la dhisay habeenimo waxa lagu dhisayay tooshash waxa la hayaa sawirkii laga qaaday xuduudkaanu maqli jirnay xuduudka xadka Itoobiya iyo Soomaaliland u dhaxeeya ama Soomaaliya markii ay ahaan jirtay ayaa dadku fawda ku dhisi jiray habeenkii fawdo xadka berberi maxadkii bay noqotay madagoblay noqotay waxaanu ka codsanaynaa mudane madaxweyne inaad dhulka wax ka qabato si degdeg ah haddii se sharciga la dhaafo oo sharcigu shaqayn waayo oo wax laga qaban waayo maayarka berbera ee dhulka foorsada galiyay ee ciidanka amniga u galiyay ee mulkiyada ku taariikhaysan 2018 u sameeyay haddii waxba laga qaban waayo anagu nabadgelyada markaa shaqo kuma lihin nabadgelyada anagu markaa shaqo kuma lihin ummad baa leh ummaddu sharciga ma dhaafayso laakiin sharci darro hadday timaado dee waxba iska celinaysa mudane madaxweyne maanta aanu soo gaarsiinaa adiga baaqa waxaanu nahay beesha tan waa beesha Abdiraxmaan Muuse anigu Suldaan Ibraahim Daahir Bulaalayaanahay la dooni mayna reerka fidmo iyo dhibaato dad horseedaya mihin laakiin waxa ka berberay imika lagu sheegayo ee leeyahay xaq darradaasa ku dhacday oo askarta saqda dhaxaynta la kiciyo yaa la yiraahdaa guriga inta konton tooj qaadataan askartay dhisa 200 nin ama 300 oo ustaadna geliya xitaa lafteeda taa waxaad arkaysaa goor habeenimo meel laga shaqaynaya inaanay meel cadaalad lagu dhisayo aanay ahayn ilaa waa basaq dhaxe wadii la salid baa la arkay right now ta kale labaadeen haddii maayirku yiraahdo war dhisa habeenimo dhisa oo xaggana hub laga soo gurto bilayska meesha jooga isaga nabadgelyada ka wakiila maayirka inuu raaco maaha dadka dhimanaya inuu eego oo joojiyo oo ilaahay waagu ha bariyo oo dabeedna lagu wada hadlo taasoo xaq u leeyahay laakiin maayirka inuu muxuu xukumo bara saabka iyo dhiisayga iyo golaha deegaanka intaba inuu isagu xukumo meesha kuma jirto waxa weeye taas waa khasaare horseedkeed weeye meesha xuduud maaha xuduudka la yiraahdo qoladii xoog roonay meesha dhiso wixii xuduudada aan lahayn sharciga lahayn ee Itoobiya berberdayla Itoobiya maaha waxa weeye meel lagu kala baxo oo sharci yaalo oo dadku uu yahay dad xora oo nin walba xaqiisa u sheegan karo waxaanu leenahay annaga Muuse Biixi Cabdi mudane waxaanu ku sheegaynaa 5 bilood iyo 3 bilood bariya galbeed baanu soconaynay wax ku dhaamaan weynay habeen walba waanu dib jeynay waxaanu maanta dalka hadduu kaaso qabto waxyaabo fara badan yaa qabanaya oo xaq darradu suulinaya laakiin annagu berbera
yaa xaqdarra ka dhacaysaa meeshii hooyada ahayd hooyada nabadda meeshii ahayd ee wax waliba ay wanaagga ku socon jireen taasaa iminka saq dhexe lagu shaqaynaya oo xaqdarra lagu shaqaynaya oo golaha muxuu ahaay golaha deegaanka ogaanaya oo maayirka ogaanaya oo barsaabka ogaanaya oo taliyaha howlgelinta ee bilayska ogaanaya oo taliyaha qaybta ogaanaya waar taas socon mayso waar annagana iyaana la kalifin oo dagaal iyaana la gelinin dalka iminka inta ku jirta dagaal waad garanaysaa beri buu dagaalku naga xiga oo hawd buu naga xiga oo galbeed buu naga xiga waar halkii bad qabtay qurahayd ma waxayadii ha laga bilaabo ha laga daayo madaxweyne ka daayo halkaa waxaanu ku leenahay wax ka qabtaa annagana iyaana la kalifin dadka waxna yay dhimanin waxna yay silcin yaan dhaawac ka imanin berberana yay magaxuma raaceen adiga yaanaanay ku imanin adiga iyo wasiirka daakhiliga intiiniba yaanay imanin iyo wasiirka ku-xigeenka amniga labaduba adeerayaal arrintaa wax ka qabta janannada laftooda waxaanu leenahay waar waxa laydiin xil saaray dalkuba hadduu xumaada laydiin xil saaray inaa waxa xun wax ka qabataan janannada jananka bilayska iyo jananka ciidanka iyo ku-xigeenkooda mid waliba wixii khalkhal dalka gelinaya dee waa la qabanaya adeerayaal arrintaa waxaanu leenahay wax ka qabta anigoo ah sheekh albeledka burco muriidka ku suntan magaciisa ku hadlaya anigoo ku hadlaya magaca reerka anigoo ku hadlaya magaca waxgaradka beesha Cabdiraxmaan Muuse oo halkan ay ka muuqdaan salaadiin suldaankii iyo dhammaan cuqaashii iyo gudoomiyihiiba hadalku waa intii ay yiraahdeen anigu laba fariimood baan dirayaa fariin waxaan u dirayaa madaxtooyada golayaasha wasiirada ku shaqale iyo janannada ciidanka bilayska fariinta labaadna waxaan kaga hadlayaa berbera iyo maayirka waxaan leeyahay madaxweyne waxa tahay madax meel la taabto ka sareysa ma jirto halkii ugu sareysay waxa tahay madaxweyne kuwa ayaa araga dagaal wuxuu yahay iyo fidno waxa tahay madaxweyne maanta ummadda ilaahay uu kala xisaabtamayo dhexdooda wixii ay ka dhaca haddii waxba laga qaban waayo waxaan ku leenahay madaxweyne waqtiyada ka mid ah ayaa nin asxaabtii rasuulka hadda hadalkaa u fiirsada iyo nin kala dhul isku qabsaday markay dhulkii isku qabsadeen ayaa asxaabigii baa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam war ma ku dhaaranaysa adigu iyo kii midka kalena yuhuudi buu ahaa ninkii yuhuudiga ahaa baa dhaartii ogolaaday eeg markaasuu nebi maxamed u xukumay ninkii dhulkii ninkii asxaabiga sheeganayey waa kan maayarka ugu maamaahaya hadda dhegayso ninkii asxaabiga sheeganayey baa arrintii ka qanci waayey wuxuu yidhi cumar binu khadaab baynu isula tegayna mar labaad ambiil baan ka qaatay buurtii nebi maxamed ninkii yuhuudiga ahaa baa yidhi maxamed wuxuu xukumay waxaan ahayn miyuu talow cumar xukumaya may cumarna inoo geey buuhi cumar baa la isula tegey cumar baa arrintii loo sheegay cumar baa ninkii yuhuudiga ahaa ku yidhi war ma waxaan maxamed noo kala xukumin baad noo kala xukumaysaa wuxuu yidhi cumar waar ma dhabbaayoo nebi maxamed baa isula tagteen oo dhulkaasi ninkaasuu raacay oo aanaad ii mooday naf oo aad igu soo noqotay arrintaasi waa jirtay buu yidhi wuxuu yidhi cumarna idin xukumaya sii suga wuu tegey cumar seeftiisii uu soo qaatay ninkii asxaabiga sheeganayey ee nebi maxamed xukunkiisii diiday buu qoorta ka jaray horta maayarka berbere wuxuu u baahan yahay nin sidaa cumar binu khadaab qoorta kaga jara xukunka ummadda dulmiga iyo xaqdarrada in badan baa dawladdu ammaanaysa iyo dadku wixii ay ammaanayeen maaha wax ka jira waa wixii wax la cunayay unbaa ammaanayay waxaan leenahay dib ha laysugu noqdo arrintaa madaxweyne si degdega wax uga qabo waxa uu yidhi sheekh cismaan nuur ilaahay raalliha ka aadee wadaad baa lagu yidhi wuxuu yidhi wadaad waan ahay rag baa ku meelalaystoo dad damaaciyey baa lidhi sheekha damaacigii markuu arkay inay wadaan buu yidhi wadaad waan ahay laakiin wadaadka ikhwaan yidhaahda mayhi wadaad wax iska celiyaan ahay buu yidhi haddii xaqdarro lagu sameeyo waxaan ku leenahay madaxweyne arrintaa haddaan si degdega wax looga qaban baaqayaga baaqii hore odayaashana waad maqashay wax waanu iska celinaynaa warankayagiina waanu sidanaa